wasiirka wasaaradda cadaaladda Somaliland Saleebaan Warsame Guuleed ay weheliyaan agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Ismaaciil taliyaha guud ee ciidanka asluubta Sareeyo Guuto Axmed Cawaale Yuusuf Libaax taliyaha ku-xigeenka ciidanka asluubta iyo agaasimo waxeedyo ka tirsan wasaaradda cadaaladda ayaa kormeer ku tagay taliska guud ee ciidanka asluubta Somaliland kormeerkan wasiirka ayaa ku saabsanaa indhayn uu ku sameeyay habsami u socodka shaqo ee ka dhaxaysa wasaaradda cadaaladda iyo ciidanka asluubta markii wasiirka cadaaladda Somaliland soo gaaray xarunta taliska guud ee ciidanka asluubta waxa uu salaan sharaf ka qaatay saraakiil ka tirsan ciidanka asluubta ugu horeyntiina waxa halkaasi ka hadlay taliyaha guud ee ciidanka asluubta Somaliland Sareeyo Guuto Axmed Cawaale Yuusuf Libaax isagoona wasiirka uga warbixiyay qaybaha kala duwan ee ciidanka asluubta iyo shaqada ka dhaxaysa wasaaradda cadaaladda iyo ciidanka asluubta wax qabadka iyaga intuu leeyahay ciidankan rag badan baa iiga soo horeeyay rag baa iyagoo meesha aan jirin soo bilaabay ninba waxbuu gaarsiiyey waxaanu maanta halkan soo gaarsiinay waa nala arki doontaa waxaanan jecel lahay inaanu ogaano halkan wixii aad talo iyo tusaalena siinayso waanan ku camal falaynaa diyaarna waxaan u nahay in aan kula shaqayno iyadoo in ahayn mid aan annagu soo goosannay ee ay tahay mid nagu qasaba oo sharci dawladeeda waxaanan ku leeyahay ku soo dhowow dhankiisa isna waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda Somaliland Saleebaan Warsame Guuleed isagoona ballan qaaday inuu sii kordhin doono wada shaqaynta dhow ay leeyihiin wasaaradda cadaaladda iyo ciidanka asluubta Somaliland waxaana wasiirada hadaladiisii ka mid ahaa sidaa uu taliyuu sheegay waxa weeye horena ciidanka waa u soo wada shaqaynay maantana farxad bay ii tahay inaanu wada shaqayno wasaaradda cadaaladda iyo ciidanka asluubtu waa wada shaqayn bay leeyihiin aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ciidanka asluubtu qaranka Somaliland muhiimad weyn buu ugu jiraa maxaa yeelay muwaadiniintii soo dambaabay ee dunuubta dalka ka soo galay iyo ajaanibba markii ay garsoorka soo maraan halkii hoygii ay ku dambaynayeen waa ciidanka gacanta ku haya weeye aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa waajibaadka adag ee aad dalka u haysaan waxaan jecelahay waxaan ku faraxsanahay inay ciidanka asluubtu ay korayeen dhismo ahaan iyo xafiis ahaan jeelasha laftooda inay korayaan waxaan isla kaashan doonnaa oo qorshahaygu uu yahay annagoo mas-uuliyiinta ciidanka iskaashanayna inaynu fidinno jeelasheenna badinno oo kordhinno inaynu kuwa dayactirka u baahan dayactirno inta iminka inoo dhammaatayna inaynu sii siyaadinno wixii aynu ku kordhin karno inaynu tababarrada ciidanka fidinno inaynu maxaabiista aynu gacanta ku hayno ee ciidanku gacanta ku hayo ee jeelasha ku jira inaynu uga faa'iideyno muddada ay xidhan yihiin aynu wax barno farsamada gacanta ha noqoto tii kale tacliintii kale caadiga ahayd ha noqoto waxaan aad u soo dhaweynayaa ardaydii maalintii dhaweyto ka qalin jabisay jaamacadda Beder oo aan taliska iyo jaamacaddaba ku ammaanayo waxaan jecelahay inaynu uga faa'iideyno muwaadiniinta xidhan ee jeelasha ku jira inaynu iyaga oo isbedelay aynu ku dadaallo inay ka soo baxaan jeelasha oo bulshadooda ay dib ugu noqdaan waxaan idiin ballan qaadayaa inaynu si dhow u wada shaqayno isu dhagalnuglaanno xilli walba isheli karno baahi walba isla kaashanno halkaa iminka aad taagantihiin aynu hore uga sii dhaqaajinno ugu dambeyntiina waxa uu wasiirka cadaaladda Somaliland uu soo kormeeray xafiisyada kala duwan ee ciidanka asluubta isagoona warbixino kala duwan ka dhageystay saraakiil ku-xigeenada kala duwan ee ciidanka asluubta Somaliland Mustafa Cabdi Dallaax warbaahinta qaranka Somaliland Hargeysa